sidaan la wada socono dhawaan waxaa bariga Somaliland laga soo xiray qaar ka mid ah ciidamada Jamhuuriyadda Somaliland oo moodo in deegaamo gaar ahaan beesha habar jecel in si gaar ah loogu beegsaday raggaasi oo ahaa dhowr iyo 10 nin. Hadda khadka telefoonka waxaa ku jira qaar ka mid ah taliyayaasha ciidamada Qorlugud ku sugan oo isla deegaankaasi iyaguna ka soo jeeda. Taliya Aadan Axmed Yuusuf taliya Lugooyo ayaa khadka ka mid ah taliyayaasha ku jira. Aadan soo dhawo walaalo, maxaad arrintaas faahfaahin naga siin kartaa? walaal bishaara ayaa bandhoway arinta waxaan faahfaahin ka siin karaa waqtiyadan la soo dhaafay makaan usbuucyada dambeeyay 7 nin oo ka soo jeeda deegaanadan bariga galbeedka Buuhoodle oo ka tirsan ciidanka qaranka gaar ahaan bulshada 17 ayaa lagu xiray soo sharci darro waa gartay sifaha soo ahaa adigu macnaha raggani waxa weeye 6 nin oo isku jifa ah oo ka soo jeeda jifada Soomaaliyeed hal loo jifada cunug soo jeeda markii soo jeeda ragga waxa lagu xiray sifa maanta in halgan ku jira lagu xiray ahayn todobadan ma rag halgamayaal oo qaar ay jiraan saddex jeer qarankan u dhaawacmay waa gartay waxaan loo cadeeyay in la leeyahay qoriga areedin walba qaranka la soo galay waxa lagu fanayaa calaamadda qaranka gaadada waa gartay sidaa ugu hadal xaq bay ku hadleen oo sharciga waxay ilaamaan soo jeednaa deegaano goob dagaal qorigana haday ku dhacdo calaamadda qaranku ma aha wuxuu ninku xorriyad u leeyahay waxaan ku suganahay hadii jiro fast tagnaa goob dagaal waxa weeye deegaanada Qorlugud sidoo kale Boordarkayn deegaanadaas ku dhasheen waa gartay inta markay yiraahdaan rag adigu macnaha qaab afdu ahaan loola dhaqmay waxaan loo xiray si xaaraana 6 nin oo isku qabiil waliba 7 nin oo isku qabiil waliba lixal jifo tahay disfaha loo xiray iyagoo ciidan qaran ku dhex jira waa dareemi kartaa waa chaachusnimo marka maadaama 6 ka mid ay beesha Solomadow yihiin deegaankooda Qorlugud u badanina ay colaadi ka taagantay si gaar ah iyaga loo sii beegsaday baad u aragtaa beersimo taagay lagu soo waaga soconayay waaye laakiin iyadoo aysan jirin waliba ciidanka qaranku yahay ciidan aan hadeer haday xabadada haday doonaan koronayaan warma haysano kugu daawanaya tignitada kugu dhacayso deegaankan ku dhalanay si wada ogsoon tahay ama ay ka soo jeedaan raggaas hadeer mudarada lagu kacay waxa weeye deegaan ku yaalo goob dagaal ana jirto goob ka baalayso calanka Somaliland uu ka taagan yahay waa gartay waxa soo maray dhacdooyin in iyadoo xabad ku socotay raggii deegaanka u dhacday leeyahay tignitada qaranka lagu dhaweeyay markaas ma haysto amar ay soo gasho iyadoo xabadu idinku socotay deegaanada habar jecel ka socoteen ciidankii qaranku ay yiraahdaan amar ma haysanaan idinku soo gurmano yaa maskax buuraa kamid aha Boordarkayn xaaladeeda waa la socotay de wiilal baa soo galay amar laan waxa weeye markaas halkii la xiri lahaa raggii qaran diminta sameeyay oo nuuxtaan kamid aha iyo ragga kale ma ka xiray ka hooseeya ee la xisaabtamay lagu hortoogan lahaa ciidanka qaranka in muwaadiniintii dalka u halgamaysay la xirxiro waliba lagu xiro waxaan munaasib ahayn oo maanta in halgan ku jiro lagu xiro ahayn arigaas wuxuu keenay kacdoon haday tahay ciidamada SSB haday tahay qabiilka Oqaal Salaadii wax garad aad iyo aad bay wax yihiin ya amray waxaana noqonaysaa in Somaliland dagaal gudaha ay ka wadaan nuuxtaan iyo musabixi ama sida isku dil lahayn bulshooyinka inta hadeer isku soo hadhay Somaliland ku wada nool qorshaha asaas dawada ku hayaa wixii warbixina kalena waxa ku daray General Caati way hay aad bad ma santay taliyaadan walaal bishaare waa ku salaamay General Caati oo soo dhaweynaya walaal waaniga Maxamed Axmed Aadan General Caato si fiican baan walaal ku soo dhaweynaya Caato General walaal hawshaas waa jirtaa inamada 7 ay habar jecel waa la xilaa waan gartay sifa khaldan baan lagu xilo dawladdu ku xidhay maadaama qoryahoodii ay ku qabsatay xaqana kala ay ka taagnaayeen si fiican waa lagu khaldamo xalgaasu waliba 7 nin qaar dhaawaca ku jira rag badan oo dhaawaca ku jira oo dhowr jeer qaranka u soo dhaawacmay dagaalkii la saanood oo iyagoo dhaawacana maanta la xidhay iyagoo dhaawaca waliba taalan loogu daray oo qoryahoodii lagu qabsado waxaad ii sheegtaa maadaama ciidanku ay farabadan yihiin dad farabadan inay hubkooda iyagu soo iibsadeen maxaa inta gaar loogula soo baxay soo ma joogaan rag kale hubkooda lihiba
waa joogaan qaar dawladdu siistay way joogaan qaar qoryahooga la yimina waa joogaan oo cid walba leh maxaa raggan loo bartilmaameedsaday markaasi ka soocay ragga kale ciidanka ah ee la sifaha ah walaalaya taagan dawladdu waa si gaar ah oo habar jecel u weegayso ciidankeeda oo aan la qaban saraakiishii laascaano soo jabisay wali ciidankii hogaaminayaan niyad jab nooceeya bay ku keentay ciidanka iyo dadka deegaanka in weli ciidankii wax isbedelaan uu ka dhex dhicin oo kuwiina ay ilaa hadda iyagu ay yihiin kuwa ciidankii sii xilxidhaya halkii lala xisaabtami lahaa wallahi bulshada waxay ku keeneen ummadda Soomaaliland oo dhan ku nool waa ka xuntay arrinka hadda saraakiishii ciidanka laascaano soo jabiso haddana maanta hortaagan oo alaanka wax cadaalad aan la horkeenin wax la filanayo xukuumadan laga filanayay maaha waliba saraakiisha qaar baa ka mid ah imika kuwan xidhay ciidanka jabkiisa aan lagu cambaaraynayo dowlad ka mid yahay falkan ka dhacay imika askarta la xidhay sharci darrada lagu xidhayna ku jira xaligooda ka dambeeyay dowlad baa ka dambeeyay xaliga lagu la kacay marka doolal maysaga amarka bixiye mise amarku xagga sare uu ka yimi amarka jaranku ka yimi taani buu ka yimi waa gartay taani buu ka yimi cali bariyana waa saxeexeen iyo doolal ogaalkaaga imika ogaalkiina nimankii halkay ku sugan yihiin mabruuca lagu hayaa miyaa la sii dhaadhiciyey xaaladooda maxaad ka warhaysaa foonada waa laga qaaday qol madow oo burcaa baa lagu riday warbixintooda intaasaan ku haynaa maxkamad baana loo diyaarinayaa odayaashii waa la diiday xildhibaanadii waa la diiday marka nimankaasi waxay maanta god madow ugu jiraan iyagoo ciidankooda difaacayay hubkii aanay dawladdu u iibinin aad idinku lahaydeen aanan anaguna idinku difaacayn soo wareejiya kaasaa lagu haystaa oo deemika lagu xidho odayaashiina lagu diiday xildhibaanadiina lagu diiday cidda godobtayadu aanu qabsan doonana waanu ognahay waan gartay waa cid gaar oo annaga aanu ognahay waxna waanu ka qabanaynaa 24 saacadood haddaan la soo dayn nimanka waan gartay 24 saacadood haddaan xukuumaddu soo dayno madaxweyne Muuse Bixi uuna ka hadli wixii aanu soo qabsan karnaa soo qabanaynaa waanu soo qabsanaynaa idinku haddaad rabto haddaad rabin kama jawaabi kartid laakiin haddaad rabto inaad ka jawaabto halkaad ku sugan tihiin idinku hadda annagu waxaan ku sugannahay jiidaha hore ee maskax boqole saraakiishii ciidanka madaniga hogaaminaysa nagu sasareysay ee dagaalka gelisay waxaan ku sugannahay balliga maskax boqole waan gartay intaad dagaaladaasaad ku jirteen eed ciidanka madaniga ahaydeen miyaad wax taakulaa ka heshaan dawladda wax garab qabasho ah maxaa laydiin qabtaa waxaan dawladda aanu ka helnay oo xukuumadda Muuse Bixina tartaaba yarata garan maynaba waan gartay waxa ila fadhiyay imika saraakiisha ciidan ku jira kuwii dhaawacmay xilka wadna xabadu fadhiday cisbitaalada dibadda in loo qaado ciidanka qaranka lagala mid dhigo ay u eekayd xukuumadda laakiin xukuumaddu soo inta badan ka hadasha madaniga ee idin dhiiri gelisa ee rabta dagaalkan inuu sii socdo oo idinku xataa haday duulaan idinkoo la idinku soo qaadin xataa inaad difaaca ku jirtaan inta habar jecel iyo madanigeeda dhiiri gelinaysa taa kulana kama heshaan hadana miya kama helo waa dagaal siyaasadeedsan marka dawladii taalbay ahayn anaga lagu daba dhuumanaysaaba imika ciidanka madaniga baa ciidanka qaranka ka horeeya anagoo bila mushaar ka horeyna oo idinka itaal la idin bidaya anaga itaal la bidaya anaga ka horeyna tiknikadooda wayna daba taala taayada ka horeysa waan gartay 30 kiiloomitir ayaanu ka horeynaa ciidanka qaranka waan gartay marka xukuumaddu iyadii baa itaalkeedii gabtay shaqada ilahaydna may qabsan saraakiishii laascaano soo jabisay ciidankii bay weli hortaagan tahay ciidankii niyadda ka dhimatay maadaama saraakiisha la xilxili waayo xilka laga xayuubin waayo si wanaagsan
in badan imika waxa laga hadlayay qaramayn ama mushahar loo qorayo la qarameynayo ciidamada madnadiga ah oo xukuumaddu ay ku nin ku ololeynaysay ma idin soo gaadhay hawshaas iyo mushaharkaas iyo kuleynta ciidanka ah iyo in laydin qarameeyay iyo ma idin soo gaadhay taasi haba yaraatee wax laga soo gaadhay iyo waxay noo haysaa midna ma jirto waxaan lagama soo gaadhay xukuumadda fadhiyada Hargeysa waxa lagaga sheekay taliyacaad general caata fadhiyada Hargeysa waxa lagaga sheekeeyaa in xukuumaddu gacanta idinku hayso miisaaniyadii la idinku daray kunin la idin qarameeyay idinku ma haysaan miya warka waxa ma hayna lagu qarameeyna kama doonayno maadaama aan dalkayga iyo diintayada difaacanayno cidna duulaan kuma nihin deegaanada ayaan ku sugan oo ka dagaalamayna si wanaagsan marka halkan kala hadal Colonel Daud adad maasan Colonel Daud walaalo waa kugu soo dhaweynaya bishaara media walaalo kala anaga taliyad aadan iyo channel cato wad maqleysay xogaha inoo soo gudbiyaan maxaad ku daraysaa walaalo waxaan ku daraynaa dee waxa weeye waxa todobaan in ka lagu xiray degmada codkaaga in yar taliya Daawud adigoo raaliya codkaaga in yar si fiican baan u maqlin halka hadda noogu celiso maxaa tiri shaqada lagu xiray waa gartay isfaash ciidamada lagu xiray iyo qoryihiiniba shaabad lagu dhufanayaa yiri cadaanka loo xiray si wanaagsan si degdeg ah loo sii daayo oo sharci garaysan walaal in yar maad meel fadhiisan kartaa codkaaga xoog waxba laga qubqacdaas u hayaaye halkay fadhiya yara fadhiiso intaana iigu soo wada celi aan hal mar ku wada celino waxaan ku leeyahay Daawud waxaan ku leeyahay shaare baad si wanaagsan walaal waxaan ku leeyahay saddex todobada nin habarka ayaa lagu xiray kusoo jeeda deegaanka waa gartay deegaanka aynaba si fiican waxaa lagu xiray fashal cadiraha waxaan leenahay fashal cadirahana waa khalad ma garad waan gartay dowladii Muuse Bixi hadda waxay intaan saxiib boqol la saaran ku xilaaba halkeed galaya inay tiraahdo qoryihii ay siirteen bal ii shaambaday in la khasab ku keena oo anagu la wareegayna in arigiisu soo siistay صح والله سبحان الله ما قدرت وين قلت سيدحين كورنيلو كلا hadlaya mid waxaan leenahay nimanka la soo daayo shaqada hadana shaqada daraaba lagu xiray waxa weeye riyadoodu loo soo celiyo 24 saac ka badan fariinta aad u dirayso mas'uuliyiinta beesha habar jecel idinku matesha xukuumadda iyo baarlamaanka iyo ilaa qurbaysayna maxaad leedahay salaadiinta waxaan leeyahay wixii xaq daraa habar jecel gulakaayo waa ku aadaan balad ka doonaya ma garad waan gartay yaji waajibkiina qabsan weeyaan annaga dhalinyarada habar jecel ah oo hadlayno oo waliba ku xabada uridayna marka wixiinu hadalun bay noqonayaan ficil ma isu bedelayaan hadii raga la xukumo oo maxkamad la geeyo oo talaabo laga qaado oo ay arintu sida iyagu rabaan ay nuxtaaniya ay ku socoto maxaad idinku qaban kartaan annagu waxaan qabanaa wallahi billahi talaahi sharka qorigan ciisana waxa weeye nin waliba meesha ku banaan buu iyaadaya ma garad nimanka hadday xoog sheeganayaan ama asigelin jamcaha idna iskama xoog weeyaan ma garad nin waliba wuxuu ahaan jiru noqonaya haddii macnaha xoog meesha yimaado si fiican haddii meeshana cadaalad darraa ka muuqata maarag waan gartay cadaalad darrana looma baahno oo wax
ما قشرت عدالة ويا سيد عاوش كليا si fiican aad iyo aad marka walaalkaan subxaan leenahay toddobaadana habar socday lagu xilay sharci darrada waa in si degdeg looga sii daayo oo 24 saac ma garat waan gartay waxaa leenahay salaadiinta habar kaleeyo aqwaasha habar kalena iyo sifiina ka hadlo si fiican nimanka habar kale hargeysa fadhiyo madaxda عقلنا يسرادين تا. يبغون يكتكلم هذا كلام كل الله سامي. هذا. سفيان. جهل شيء جهل شيء دايو. المسبح دون ما يوقع سجن تسوى تايو دون شو يوتايو. وين قرتي؟ عاد يا بدو ما هتسنتين تلي aad baad u mahadsantiin taliya daa'uud taliya aadan iyo general caatir dhammaantiin aad baan idinku mahad celinaya waqtigiina qaaligaad i siiseen ايوه والقاعد شاد يا نوح داوود عبد احمد ياسين general aadan la general يا دول قصوا aad baad u mahadsantiin walaal waxaan bishaaro walaalo waxaan ku helayaa salaadiintii wax garadka dalka hadii cid hogaaminaysa ama siyaasiyiisu uu maasaq galiyay iyo xaalad guddiga si fiican wadka badbaadiya hadii madax dhaqameed waayana cidii qaranka danaysa midaniya badbaadinaysa waa gartay aan ku amreynaa inay ka hadasho wax xaq u leedahay xaqana ay ku yeelanto cidna ay ka amraan si fiican hadii ay cabsi gelin iyo macnaas dhibaatayn istimaadana nin waliba waxaan jiray uu noqonayaa si fiican sharciga iskaan aynu sameysannay hadii meel laga dhaafo istay wuxuu ahaan jiray ayuu noqon doonaa absolutely aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalo waraysiga qaaliga ah hadisiisana waad ku mahadsan tihiin adiga iyo dhammaanba asxaabtaada kale kula joogtana waan idin mahad celinaya aad iyo aad waan salaamayaa